Soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan ka hadlaynaa sheeko ka duwan filimada caadiga, mana aha mid ku saabsan dagaal ama xabsi, balse waa sheeko ku saabsan maskax dahab ah oo ku dhex qarsoon nolol caadiya. Tani waa qisada Will Hunting, wiil nadiifiye ah oo jaamacad ka shaqeeya, balse leh hibada xisaabeed ee caqliga bini'aadamka ka baxsan. Will Hunting waa wiil ku nool Boston, ma aha arday jaamacadeed, mana aha saynisyahan. Wuxuu nadiifiyaa fasalada jaamacadda MIT-ga isagoo mushaar yar ku shaqeeya, laakiin waxa aanay cidina ogeyn ayaa ah in Will uu leeyahay maskax aad u yaab badan. Saaxiibadiisa waa dhalinyaro caadiya, kuwaas oo waqtiga ku lumiya kaftan, dagaal yar iyo sheekooyin hoose. Willna wuu ka mid yahay, balse gudaha maskaxdiisa waxaa ka socda wax ka duwan nolosha uu bannaanka ka muujiyo. Maalin maalmaha ka mid ah, barofesor jaamacadda ee MIT-ga ah ayaa ku qoray su'aal xisaabeed aad u adag sabuuradda, mid ay ku jahwareeraan ardayda ugu fiican jaamacadda. Laakiin habeenkii, Will oo kaliya nadiifinaya ayaa su'aashii xaliyay. Ma uusan qorin magaciisa, mana uusan dalban abaalmarin. Wuxuu xaliyay xisaabtii adkayd, sababtoo ah wuu awooday. Tani waa markii ugu horeysay ee hibadiisa qarsoon ay bannaanka timaado. Inkastoo Will uu caqli badan yahay, haddana noloshiisu ma fiicna. Dagaal ayuu galaa, mararka qaarna xabsi ayuu galaa, wuxuuna ku nool yahay caro iyo isdifaac joogta. Maalinkii xigay, barofesorkii ayaa ogaaday in Will yahay qof ka xaliyay su'aasha. Halkii uu xabsi u diri lahaa, wuxuu siiyey fursad in uu barto xisaabta si rasmi ah, in uu la kulmo dhakhtar cilmi nafsi. Will wuu aqbalay, balse qalbi furnaan ma ahayn. Markuu la kulmay Sean Maguire, wax walba way isbedeleen. Sean ma ahan nin doonaya in uu Will ka adkaado, waa nin doonaya in uu fahmo. Tartankoodii hadalka wuxuu noqdaa mid qoto dheer, mid tabanaya dhaawacyadii carruurnimada, cabsi iyo kalsooni darro uu Will qariyay sannado badan. Will wuxuu la kulmay Skyler. Skyler waa gabar caqli badan oo jaamacadda dhigata. Waxay bilaabeen xiriir, balse Will mar walba wuu ka cararaa markii ay arrin dhab ah timaado. Skyler waxay rabtaa mustaqbal wada jira, Willna wuxuu ka baqayaa in uu lumiyo iyada ama la dhaawaco. Hibadiisa ma ahan dhibkiisa ugu weyn, dhibkiisa ugu weyn ayaa ah